isaguna gabyaagii caanka ahaa ee Salaan Maxamed Xirsi Carabi ayaa ka mid ahaa raggii iyaga oo lowlowsanaya guur isku taaray kadibna afka uga galay gabadh yar oo weli carcartii qabta isla markaana xilligeedii joogta. Salaan oo da iska ahaa ayaa guursaday gabadh magaceeda lagu sheegay Dekeeya. afadan oo kolkii hore uu xoolo badan ka bixiyay ayaa qawaday hawlihii gogasha iyo dheeshii habeenka kadibna waxay bilowday hiif iyo haaraan ay kaga cabanayso in aanu duqu u hagar bixin sidii la filayay. Salaan oo dareemay in halka laga raacay ay tahay hawsha guriga ayaa sheegay in odayadii gedihiisa ahaaba ay qabaan dumar yar balse aanay la kulmin ta isaga lagu wado oo isaga oo afadii cadhaysaydna laabta u geliyay hadal uu ugu sheegayo inay gurigeeda dhaqato ama ay saddexdii guddoonto. waxaana uu yidhi Dekeeya ay dulmaan kugu qabaa waa hal ii daran ragdil waagaya qadafse waa lagu duloobay xaajada daciifka ah qalbiga waa dadamaqdaaye anuunbaa dulqaadanahaye durug dhawaaqiye oo waa taa dubaaqada qalbiga doogtay wadnihiiye iminkaan dibiro ciil ka baqan inaan dilaacaye. awrkii daafuray geela way isdadis coloobaane oo waa kaa duleedada fadhiya diif wuxuu qaba dardar waxa leh doob iyo abeer diin abiidkooda. inaad darar xogda leh iigu dudi waan ku duun garane dabro odayma laasimo hadduu dooxanaa ride dadaalkiisu waa kol iyo laba inuu ku duuqaaye. dafse adaa ay soo yidhi markaad damacsanayd guure waa tii da'daan ahay wax badan lay dabaaldegay dadka wax iga liitaa ku badan lana daryeelaaye ma darbayso fiqi aw cabdiba dahabadiisiiye intay marada duuduubatay duqa xambaartaaye. ruuxii dayiba uunku waa u wada duceeyaaye inaad durriyad ubad yeelatana duugga la arkeeye eegana ducuunkuma jiree waxaan ku doorsiiyey daartii casayd iyo xafiis inaad ku daalayso iyo inaad dalaaq kuma geshide daasan gurigaaga kala dooro gabadh yahay aniga hay dardaar werin.